kulanti wanaagsan daawadayaasha xishmada iyo qadarinta naga mudan meel kastoo aad dunida ka joogtaan iyo sulbood nala socotaan. Halkani waa Shacabka TV oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee dhacdooyinka Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. Kulanti haboon daawadayaal, wararka xiisaha badan aan idin hayno waxa ugu waaweyn Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaaraha xukuumadda, iyo ninkii 30 milyan lagu eedeeyay inuu boobay Cabdullaahi Maxamed Nuur oo si wada jir ah u booqday dekedda magaalada Muqdisho. Waxaanu eegi doonaa kulan ajaanib ay kula qaateen xubnahan gudaha dekedda magaalada Muqdisho. Waa maxay hawsha ka socota dekedda? Waxaanu eegi doonaa xogtii ugu dambeysay ee kulankaas iyo sidoo kale maraakiib deeqsiday oo markaas lagu wareejiyay Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Somaliya. Hawsha ka socota dekedda magaalada Muqdisho warbixin ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa. Ciidamada militariga Soomaaliya oo soo bandhigay gaadiid dagaal iyo hub ay sheegeen in ay ka furteen maleeshiyada kooxda sufada ee dagaalkii ugu dambeeyay ku soo qaaday magaalada Gurceel. waxaan u eegi doonaa qasaaraha ay soo bandhigeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya. Somaliland wali waxay ku mashquulsan tahay oo ay wada dhibaatada u geysanayso muwaadiniinta Soomaaliyeed kadib markii magaalada Cerigabo ee gobolka Sanaag laga soo musaafiriyay boqolaal qoysas Soomaaliyeed oo halka ku dhaqana. waxaan u eegi doonaa dhibaatada ay wali wado Somaliland. warbixinada kale aan idin soo gudbin doono oo aad warkayaga ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn dawladda Kenya oo ugu dambeyntii ku qasbanaatay inay u hoggaansanto amarkii ka soo baxay ICJ. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin soo gudbin doonaa. meel kastoo aad dunida ka joogtaan kulanti haboon ayaan u leenahay. halkani waa Shacabka TV oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. daawada haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay Shacabka TV, channelka subscribe ku ahdo, muuqaalkana like noo saara. doodayda waxay ku saabsan tahay ra'yigiina saliimka ku soo cabiri kartaan daqiiqadaha soo socda. Soomaaliya maanta waxa muuqanaysa in duulaan xoogan lagu soo qaaday iyadoo ay markaa meelaha qaarna ka dhacayaan dhibaatooyin amniga liddi ku ah. haddaba dhibaatadaasi ka dhacaysa gudaha dalka Soomaaliya muwaadin iyo hadisleeda way ugu wacan yihiin haddii ay tahay dawlad goboleedyada dalalka faraha badan ee Soomaaliya saaxiibka la iyo qaybaha siyaasiyiinta kuwa xildoonka iyo kuwa kaleba. waa qodobkayga ee dooda. channelka subscribe hadin ahado, muuqaalkana like noo saara. haatan aynu guda galno tafaasiisha wararkaasi oo faahfaahsan. waxaynu ku bilaabeynaa warkeena. Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo uu weheliyo ninkii uu ka dhigtay wasiirka amniga ee Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa si wada jir ah waxay u booqdeen gudaha dekedda magaalada Muqdisho. booqashadooda waxaa ku weheliyo xubno kale oo wasiir ku-xigeen ah iyo wasiiro. haddaba socdaalkoodan oo ay ku tageen dekedda magaalada Muqdisho waxay sidoo kale ku gudoomeen deeq ka timid dawladda Masar oo saaxiib la Soomaaliya. deeqdaasi oo u badan gargaar cunno iyo caafimaad intuba. markab ku xirnaa gudaha dekedda magaalada Muqdisho ayuu la wareegay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo deeqdaasi gargaarka u saarna. hase ahaatee waxaa gudaha dekedda uu ra'iisul wasaaruhu kulan kula qaatay xubno ajaanib ah. ragga ajaanibta ee Maxamed Xuseen Roble kulanka kula qaatay gudaha dekedda magaalada Muqdisho waxa ay u badan yihiin shirkado ganacsi ka doonaya gudaha dalka Soomaaliya. waxyaabaha su'aasha keenay ayaa waxa ka mid ah shakiga dhaliyay in ra'iisul wasaaruhu gudaha dekedda uu shirkado ganacsi kulan kula qaato waliba iyadoo uu weheliyo Cabdullaahi Maxamed Nuur, ninka ay shakiga ka qabaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka dhigtay wasiirka amniga qaranka. haddaba kulankaasi inkastoo saxaafadda laga qariyay balse ila dhanka dekedda ah ayaa u xaqiijiyay warbaahinta madaxa bannaan in kulanka uu qaatay wax ka badan 1 saac isla markaana kaliya goobjoog ay ka ahaayeen wasiirka amniga ninka laga dhigay Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble. shirkadahan ayaa isugu jira kuwa ajaanib ah iyo kuwa kale oo qaarkood rag Soomaali ay leeyihiin. waxaana tani u muuqataa sida ay xaqiijinayaan ilaa xogtaan uu ka soo xiganay qayaano iyo sidoo kale heshiisyo qarsoodi ah oo markaasi dad gaar ah loogu daneynayo. ninka laga dhigay wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa hore loogu eedeeyay in uu boob u geystay hantida qaranka ilaa iyo 30 milyan oo dollar. sidaa daraadeed shacabka Soomaaliyeed waxay ku sheegayaan in dareen weyn ay ka qabaan xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. haddii uu booqanayo meel ka mid ah magaalada Muqdisho sida xafiisyada dawladda ama xafiisyo kaleba ama uu tagayo safar dalka dibadda ah, Robluhu waxa uu horay u sii kaxaystaa Cabdullaahi Maxamed Nuur. halkaas aad weli nagala socotaan daawadayaal. waa Shacabka TV meel kastoo dunida ka joogtaan. waxaanu leenahay
kulan wacan oo wanaagsan oo ka soo aragtay dhiibta qodobada wararkeena. ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan magaalada Gurceel ee gobolka Galguduud waxa ay soo bandhigeen hub iyo gaadiid dagaal oo laga soo furtay kooxda sufada ah. saraakiisha militariga dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay shaaca ka qaadeen in hubka iyo gaadiidka laga soo furtay kooxda sufada ah markii hore bay ahaayeen kuwii ay lahaayeen ciidanka dowlad goboleedka Galmudug. waxa ayna sidoo kale saraakiisha hadalkooda inta raaciyeen dhammaan hubka ku maqan gacanta kooxda sufada ah in sidaas oo kale u soo qaban doonaan. tirada gaadiidka ay ciidanka soo bandhigeen waxaa ka mid ah gaadiidka loo yaqaan Cabdibilaha iyo sidoo kale qoriyaha kuwa fudud iyo BKMK. dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Gurceel ee rugaalceliska ahaa isla markaana halka ku qaadeen maleeshiyada Ahlus Sunna ay sheegeen ciidanka dowladda Soomaaliya in hubkaasi lagu soo qabtay. howlgallada ka dhacaya beryahan magaalada Gurceel ayaa ahaa mid ammaanka lagu xaqiijinayo loogana hortagayo kooxda nabaddiidka ah ee Ahlus Sunna wal Jamaaca sida uu sheegay taliye sare oo u hadlay ciidamada howlgalka ka wada magaalada Gurceel. halka iyo Somaliland haddii aynu eegno Somaliland waxay dib u bilowday Markale howlgalladii ay ku dhibaateysay qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag oo ay ka taliso Somaliland ayaa Markale laga soo barkaciyay boqolaal qoys oo ka badan ilaa 600 oo qoys. waxaa dhamaaday sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Somaliland waqtigii loo qabtay dadkii ku sugnaa magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag waxaana la arkayay iyadoo dadka si qasab ah guryahooda looga soo saarayo isla markaana gaadiidka weyn lagu soo raafayo. goobaha dadka loo soo daabulaya ayaa waxaa ka mid ah gobolada dhanka koonfurta Soomaaliya. Somaliland ayaa hore dhibaato xoogan waxay ugu geysatay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool halkaasi oo qiyaastii 10,000 oo qoys oo ka soo jeeda gobolada koonfurta Soomaaliya laga soo barakaciyay. arrinkaasi oo ahaa mid nasiib daro ah oo shacabka Soomaaliyeed aad ay uga xumaadeen iyadoona hay'adaha caalamiga ah ay ka digeen dhibaatada ay Somaliland ka wado deegaanada gobolada waqooyi ee dalka. waxaana weli sii soconaya beegsiga loo geysanayo shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalkooda taasi oo Somaliland ay ku dareensiinayso bulshada mid cunsurinimo ah. mas'uuliyiinta u hadlay Somaliland waxay sidoo kale sheegeen in meelo kale oo ka mid ah gobolada ay ka taliso Somaliland ay ka soo saari doonaan dadka ku dhaqan. gabagabadiina haddii aynu eegno dowladda Kenya waxay imanka u muuqataa mid u hoggaansantay amarkii iyo go'aankii kama dambayska ah ee ka soo baxay maxkamadda cadliga dunida ee ICJ. xubno ka tirsan dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday go'aanka ICJ inuu dhaqan gali doono balse waxay ku goodiyeen in dowladda Kenya ay la xisaabtamayso siday hadalka u dhigeen dalalka Soomaaliya ku gacan siiyay in cadaaladda ay la tigsato Kenya. raggan sanatarada ee ka tirsan dowladda Kenya ayaa sidoo kale ku doodaya in ciidanka Kenya ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ay xukuumadda Nairobi la soo baxdo maadaama bay yiraahdeen Soomaaliya ay baddeedii la laabatay. caqliga Kenyaanka waxa uu tusiyay in ay qaadan karaan bad iyo bari aysan lahayn. waxaa jirtay marar badan in dowladda Kenya ay ka hortimid dacwadii ICJ natiijada ay ku dhawaaqday 12 bishan Oktoobar ee aan ku guda jirno. madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta ayaa fagaarayaal badan oo gudaha dalkiisa iyo meelo kaleba ka sheegay in dowladdiisu aysan aqoonsaneen go'aanka ka soo baxay ICJ balse xubnaha sanadka ee dalkaas ayaa sheegay in go'aanka ka soo baxay ICJ ay aqoonsanayaan hase ahaatee waxay shaaca ka qaadeen in Soomaaliya ay u aqoonsanayaan dal cadow ku ah Kenya oo Soomaaliya ka macaashtay 30 sano ay Soomaaliya burburka ku soo jirtay ayaa waxay damacisay inay qaadato qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya maadaama dhul Soomaaliyeed uu gumeystihii ugu daray xilligii gumeystii Ingiriiska. sidaa daraadeed waxay dowladda Kenya isku dhufsatay xisaab ah in qayb ka mid ah badda Soomaaliya ay qaadan karto maadaama Soomaaliya ay burbur ku jirto. dooda dowladda Kenya ayaa soo bilaabatay sanadii 2009 waqtigaasi oo qaladkii ugu weynaa ay galeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta kuwaasi oo barigaasi ahaa madaxdii Soomaaliya waxaana laga xusi karaa Shariif Sheekh Axmed oo madaxweynihii dowladii ku meel gaarka ahaa Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo waqtigaasi ahaa wasiirkii saxiixay waraaqda muranka badan dhalisay. haddaba Kenya weli waxay u muuqataa in aysan ka quusanin damaceeda waalida ah balse warkeedii waa uu soo idlaaday mar haddii DEG ay natiijada kama dambeynta ku dhawaaqday. warkii aad kala socoteen daawadayaal shacabka TV xiliga kan waa naga inta
waad ku mahadsantihiin daawashada wararkeena doodeedaas waxay ku saabsan tahay oraagiina saliimka ku soo cabiri kartaan daqiiqadaha soo socda Soomaaliya maanta waxaa muuqanaysa in dulaan xoogan lagu soo qaaday iyadoo ay markaa meelaha qaarna ka dhacayaan dhibaatooyin amniga liddi ku ah haddaba dhibaatadaasi ka dhacaysa gudaha dalka Soomaaliya muwaadin iyo hadisleeda way ugu wacan yihiin haddii ay dawlad goboleedyada dalalka faraha badan ee Soomaaliya saaxiibka la iyo qaybaha siyaasiyiinta kuwa xildoonka iyo kuwa kaleba waa qodobkayga ee dooda channelka subscribe hadin hado waa inoo qaybaha kale ee wararka nabadgelyo ayaan idin leenahay